xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud waxaad ka mid tahay mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland xukuumaddu waxay soo saartay digniin la xiriidha duufaan laga cabsi qabo inay ku dhufato xeebaha gobolada Somaliland bal hadda arrinta dadka xeebaha degan maxaad u baaqaysaa fariintaad u diraysaa maxay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim wariyaad baad mahadsantahay runtii arrintaas way ahayd maalin hore uu soo saaray isuduwihii marka isuduwaheedu uu ka hadlay xukuumaddu iyo deegaanka waa silsilad isku xidhan oo way ka hadleen oo ay soo jeediyeen dadkeedana inay u turaan oo ay meelaha riskiga alxamdulillah roobabna weydiiyeen waynu ognahay qaar dabaylo yar iyo wax keenay laakiin sidii la filayay ma noqon haddana waxaan ku boorinayaa dadka inay meelaha xeebaha oo biyo mareennada ay ka fogaadaan oo ay meelaha bannaanka u tagaan runtii hadda laas qoray oo kale bullaxaar oo kale dhinacan galbeedka xeebaheeda oo kale marka meel kastoo xeeba inay atisyoone galaan tii ilaahayna meeshay taallaa wixii ilaahay u qoray kulley seegi maayaan laakiin inay dadaal sameeyaan oo ay dadaal kaga baxaan oo ay ka fogaadaan baan soo jeedinayaa waxa weeye kulley wax walbi way dhacayaan wixii ilaahay qofka u qorayna dee kulley way iska imanayaan qoraal bay ku imanayaan qadarka ilaahay gaaladu laakiin waxay yidhaahdeen arrintaas waxaa iman doona maalin daad iyo duufaano tii ilaahay baa ka weyn markaa tooda sidii ay la filayeen ma noqon ilaahay baa dee kulley afrikaanka la jiro dad iska masaakiin oo tamar badan lahayn laakiin ilaahay baa noogu xamdi naqaynaa wixii ilaahay keenana waa lagu xamdiyayaa alxamdulilah rabbil caalamiin xildhibaan bal hadda deegaanka hawlihiisii nabadgeliyo xaaladiisa guud bal hadda iyada warbixin kooban iyadana laga siiyo deegaanka gobolka Sanaag hadda alxamdulilah dagaalkii ugu xumaa wuxuu ahaa dagaalkii ceelaf weyn labadii beelood alxamdulilah labadii beelood hadda iyagii baa wada hadlaya hawshiina meesha ugu fiicneed bay maraysaa madaxweynahana waa tay wada kulmeen oo odayaashii marka meel fiican bay arrintaas maraysaa boqolkiiba boqol alxamdulilah khayr baanuna ka filaynaa inay khayr ku dambayso oo gobolkii uu ka soo kabto dhibaatooyinkii soo gaaray gobolka Sanaag dhalinyaradii inay waxbarashadii hesho oo ay iskuuladoodii bilowdaan oo ay halkoodii businesskii hawlihii sidii ay ahaan jirtay u socdo saasaan filayaa insha Allah baan rajeynayaa in ilaahay khayr ka dhigo dadkana waxaan ku boorinaynaa inay nabadooda iyo wadajirkooda ilaashadaan wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh